fadlan daawade haddii aad janalka ku cusub tahay subscribe dheh sidoo kale sheegee muuqaalka like saar asxaabta qiimaha badan oo qaybtii sagaalaad ee sheekadii la magac baxday murugo iyo midabta koor jacayl waxay inoo joogtay meeri oo ay ku dhibicday dhibic goojo ah oo xambaarsan cudursidaha dhaliya jacayl aan heeb lahayn micnaha jacayl aan ninkiisa la aqoon maanta waxaan ka bilaabi doonaa qaybta sagaalaad george markuu ogaaday inaysan meeri si joogto ah u imaanaynin kulliyadda ayuu iska bixiyey qafiskii dhibka badnaa oo meeri darteed loogu raray neef baa ka soo gooday wuxuuna u muuqdaa nin guul gaari raba sida ugana harin ee boostada magaalada ku taalo oo ay sanduuq ku lahayd ayuu ugu ridaa waraaqaha iyaduna waxaa lagu wargeliyaa inay waraaqo u yiilaan way doonataa oo akhris ku bilowdaa sidaana waxaana ugu sii fiday u jacayl aan magac midab iyo muuq lahayn dhib badana qof aadan aqoon meel aad uga hagaagto oo jacaylkiisa kuwaala dhinaca kale dhammaan ardaydii iyo macallimiintii kulliyadda waxay hadal hayeen dhibaatada la soo diristay inantii meeri xuuraansi badan dabadii waxay ogaadeen in arday ka mid ah ardayda kulliyadda oo aan la garanayn uu waraaqo jacayl ah u qoro meeri dhinaca wargeysyada waxay bilaabeen in ay meeri ku sawiraan bogagga hore ee jaraa'idka loogana faalloonayo arrimaha jacayl ee soo food saaray meeri taasoo ah arrin ay warbaahintu la yaaban yihiin xagga guriga ay meeri ku nooleed ayaa laga dareemay dhibaatada gabadhooda haysata hooyadeed oo la hadlaysa meeri ayaa ku tiri hooyo maxaa kugu dhacay oo aad maalmahan la aadi weysay kulliyadda waxay ku jawaabtay hooyo waan xanuunsanahay hooyadii ayaa ku tiri maxaa wax u cuni weysay oo aad tv-ga u daawan weysay beryahan waxaan arkaa isagoo iska dansan meeri waxay ku jawaabtay hooyo waxay haya wax aanan weligay arag maqal oo ii diiday in aan wax cuno seexdo nasto daawado tv-ga kulliyaddana aan aado hooyadeed waa ay ka tagtay iyadoo dhahaysa bal aabbahaana waan wargelinayaa waa yaabe hooyadii waxay u tagtay odamuuri waxayna ku tidhi wax war ah ma ka haysaa xaaladda meeri odaygii baa ku yidhi maxaa ku dhacay gabadha hooyadii maalmahan ma tegin kulliyadda wax cuni mayso ma seexato adiguna soo fiiri aabamuuri wuxuu soo galay qolkii gabadhiisa degnayd kuna yidhi aabe maxaa kugu dhacay miyaad xanuunsan tahay maxaad u aadi weysay kulliyadda meeri waxay aabbaheed ku tiri aabe waxaa i helay wax iga tan weyn oo iga celiyey dhammaan hawlihii ii gaarka ahaa iina diiday inaan wax cuno ama aan seexdo muuri ayaa mar kale ku yidhi waa maxay waxaasi meeri ayaa aabbaheed tusay waraaqihii loo soo qoray ee ku beeray jacaylka aabe muuri ayaa indhaindheeyey waraaqihii isagii ayaaba la yaabay waxa ku qoran iyo qaabka loo soo qoray intaba wuxuuna ogaaday in waraaquhu jacayl ku beereen gabadhiisa wuxuuna ku yidhi aabe jacaylku waa wax jira aadna u dhib badan waxaana isku dayayaa in aan baadigoobo lamaanahaaga cusub maadaama uu yahay arday kula dhigta kulliyadda fikirkana iska yaree kulliyaddana orod oo aad aniga ayaa u tegaya macallimiinta una sheegaya sida wax ay u jiraan meeri iyadoo dhismoral ah ayay u soo hadaaftay dhankii kulliyadda markay timid waxay la kulantay wejiyo murugsan oo ka turjumaya maqnaashaheedii iyo musiibada soo wajahday iyadoo arday kastaba uu naftiisa su'aal weydiinayo talow waa kuma arday
ardayga Mary u qoonsaday waxbarashadeeda. George arag inay u marayso meeshuu rabay, boolasha ayuuna u sii xiray si aanay ugu celin dharkii qalfoofka ahaa ee uu iska dejiyey. waraaqihii ayuuna halkii ka sii waday, isagoo ujeedadiisu aanay ahayn jacayl jilid ee ay tahay inuu ku sii fogeeyo. haddaba daawade, Mary jacaylkii baa aad u haleelay, kulliyaddiina waa ay ka go'day gebi ahaanba. sheekadeedii jaraa'idka iyo idaacaduhu faafiyeen ayaa gobollada dalka oo dhani gaartay. dad badani ayaa ka muujiyey walaac, maadaama ay ahayd gabar u dhalay nin caan ah oo madax ah. Mary waxaa la geeyey isbitaallo badan iyo dhakhaatiir badan, waxna waa laga qaban kari waayey arrinteeda. waxayna bilowday calaacal iyo inay isla hadasho, waxaana ka mid ahaa hadalladeedii: jacaylkan ijaha wareeriyey, la jajabay jirkaygii, jaamacaddan ku jilnaa, jaalkaygii aan jeclaa iyo diinkii aan cunayey, iga jaray dhammaanba oo aan ka joogi waayey, xaggee baan dib uga helaa oo jaalkayga u jariya. Mary waxay noqotay mid inta badani guriga uun joogta. gabdho saaxiibadeed ah ayaa marmar u yimaado, casharadiina ugu celiyo walow aysan niyadba u haynin. George isagu farxad bay u tahay Mary oo aan gurigeeda soo dhaafin, isagoo u qoraya warqad uu ku beer la xubsanayo, tilmaamana ka bixinayo sifooyinka iyada u gaarka ah. wuxuuna yidhi: Marydan jeclaayay, marka hore salaan hoo, saxar aan lahaynoo xumaan laga sifeeyo, sacabada aan ku sido, sambabada iyo feeraha, sakaarka iyo wadnaha adiga ku saafanoo kana soocmi mayside, sadka aan cunaayana adigaaba ka sokeeya. saaxiibtaan jeclaayay, sinaanta iyo socodkaba, sunniyahaaga duhulka ah iyo luquntaada dheere lagu safay cambaaryada, kuma wada sifayn karee waa laysku kaasimay. saafidaan jeclaayay, saqda dhexe habeenkii hurdadan ka salalaa, suuraddaada wacanba la soo suraa hortaydo, hurdo waan ka saahido, saacado ka bacdina samir baan ku seexshaa, qofka ay sugaysana waa adiga Mary ah. Mary markay waraaqda heshaba way farxdaa inta ay u akhriska ku guda jirto, walow ay marka dambe warqaddu ku sii badiso jiradii haysay. warqaddan u dambaysay markii ay heshay ayay bilowday in ay qolka hoos ka soo xirato oo ay jirkeedii weysatayso, bal inay dhab yihiin sifaha lamaanaheeda ku sifeeyey. muraayaddii ayay wehel la noqotay, hadba xubin ayay iska eegtaa, marbana labis bay isku fiirisaa, iyadoo isweydiinaysa su'aal ah: waatee xubinta uu kaa jeclaaday? matanba mise waa tan? lebiskee buuse kugu jeclaaday? makanbaa? natiijaduna waxay noqotay inay dhan walba okay ka tahay oo ay cilad ugu nici karaa aysan jirin. intaa kadib ayay bilowday inay calaacasho, waxayna tidhi: anigu habow baa nahay, habeen baana ii dumay, jacayl aan hayb lahayn yaa igu habsadayoo haliyey baana ii helay, hal abuur yaqaanoo igu waala heeso, har iyo habeenna anigaa isla hadlaya, ee hanadka aan u hiloobay, halkee baan ka haybshaa oo aan ka helaa. haddaba dhegaystow, intaa waxaa inoogu eg qaybtii 9aad ee sheekadii la magac baxday murugo iyo midabta koor jacayl. waa halabuurkii abwaan cabdulaahi macalin axmed timcadde iyo tebintii saaxiibkiin cabdulaahi maxamed cabdi CMC. intaanu ku kulmi doono qaybtan qaybta xigta, sidaas iyo nabadgelyo. جعليك ملغو قري وليدوح ملو شبيه قبلة كان تدبر كتير موضيع سيدها. جعليك ملغو قري وليدوح ملو شبيه